waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo guddigii shaqadan baaxadda leh soo qabtay oo sharcigii doorashooyinka ee la keenay baarlamaanka bishii May sanadkan soo turxaan bixiyay soo tafatiray dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada soo waafajiyay aad baan uga mahadcelinayaa runtii shaqo adag ayay soo qabteen oo qurux badan midda xigta sharcigan ahamiyad weyn ayuu leeyahay waana taariikhi runtii in 50 sanadood kadib dalkan 69kii ayaa ugu dambeysay xisbiye ka hana qaada oo la laalay sharciga xisbiyada in 50 sano kadib baarlamaanka Soomaaliya looga doodo sharci doorashooyinna runtii waa taariikh wuxuuna ahamiyad u leeyahay oo lambarka koowaad sharciyada doorashooyinku waxay nambarka labaad ka yihiin muhiimadda shuruucda dastuurka kaliya ka horeeya adduunyada dimuqraadiga dastuurka waxa ku xiga sharciga doorashooyinka marka sidaas ahamiyad u leeyahay waana ka muuqataa xildhibaanadu maanta siday isugu qoreen doodiis muwaadiniintu waxay xaq u helayaan runtii aan doorasho xora weligood soo gelin oo 50 sanadood ku dhow iyo 10 sano qofkaasi laga yaabo qofkii 69kii jiray 17 sano inuusan xaq u lahayn inuu codeeyo marka waxay noqonaysaa 67 sanadood qofka maanta jira doorasho qof iyo coda kama qayb gelin oo dalka Soomaaliya gudihiisa marka laga reebo gobolada qaarkood 67 sano waa baarlamaankan iyo maaragtay dadka Soomaaliyeed badankiisa hadda inta nool marka fursad weyn bay u tahay inaan wado cusub oo dalkan qaado oo ah in doorashooyin xorihi ka dhacaan sharcigan waxaan u bixiyay walwaltiraan u bixiyay waxa weeye waxaad xor ka noqonaysaa odayga qabiilka ee dhibka badnaa waxaad xor ka noqonaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo ku dhibi kara waxaad xor ka noqonaysaa madaxda filla Soomaaliya joogta oo asaf ugu galaysid aniga xildhibaan iga dhig walwaltira la yiraahdo marka sharciga intaas ka soke meesha ugu horeysa oo aan ku bilaabayaa wuxuu yahay qodobka 11aad oo tabaaxadda sharciga runtii oo qodobka 5aad uu ka hadlayo in dowlad waxaan qayb ka noqonaynaa dalka inaan kala qaybino oo dalal ma jiro doorashadooda adduunka la kala qaybiyo sharci doorasho marka la soo saarayo la yiraahdo sharcigan doorashada wuxuu quseeyaa kaliya heer federaal sharciga doorashooyinka heerarka kala duwan ee doorashada dal leeyahay ayaa lagu maareeyaa ama ha ahaato dowlad goboleed ama ha ahaato heer degmo consulska dowladooyinka laakiin dhibka jira dastuurkeennii ayaa wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedku doorashadeedii ay maaraysanayso taas runtii guddiga reviewga dastuurka lagu samaynayo waxaan rajaynaynaa in guddiga golaha shacabka uga tirsan ay meeshaasi aysan u daymo la'aan waa muhiim dalkan midnimadiisana muhiim bay u tahay doorashadiisuna inay hal mar dhacdo heer kastana xisbiyadu ay u tartamaan heer qaran heer dowlad goboleed iyo heer degmo marka laakiin hadda maadaama dastuurkii uu nadabrayo in lagu ekeeyo heer federaal waxaan u malaynayaa taasi guddigu mar walbaba dastuurka wuxuu ahaa beys inay ka doodaan inay ku saleeyaan qodobada qodobka 11aad ayaa igu horeeya oo nidaamka doorashooyinka ka hadlaya waxaan dhihi lahaa in lagu daro meeshaas hal qodob oo saddexaad hal faqro oo saddexaad oo ah xisbigu halkan waxaa ku cad xisbiyada iyo maaragtay inay kuraastoo dhan loo tartamayo iyo kulli iyo laakiin waxaan ku caddayn kii hore waxaa ku caddaa oo naloo keenay xisbigu 275 inuu keenayo 275 kalena inay ku hoos lamaansan tahay laakiin minimumka uu keeni karo xisbigu inuu yahay 275 hadda meeshaan systemkii hore waxbaa iska bedelay in lagu qoran qabaanigu in xisbigu uu keeni karo tirada 4% 4% ee lagu qoray ugu yaraan minimumka
maximum kana 275 listiga uu gudbinayo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan uu gudbinayo minimum ka xisbi ku noqon karo xisbi lagu aqoonsan karo golaha shacabka gudihiisa waxaa la yidhi 13 xildhibaan hadduu labada gole ku leeyahay waaye minimum 13 kaas xildhibaan marka inuu gudbisan karo xisbigu listiga uu keenayo 275 ay tahay maximumkiisa laakiin kii hore qasab bay ahayd in 275 uu keeno runtii taasna dee meel adduunka ka dhacda ma jirto xisbigu kuraastu rabo u tartamaya xor inuu noqdo inuu kuraastu rabo u tartamo laakiin kuraastu baarlamaanka uga mid noqonayo oo uu hubin karo hadday 20 yihiin 25 yihiin laakiin meel ay ka bilaabataa inay jirto way taasaan ku soo kordhin lahaa siiqadeedana waa ay qoranta qodobka 12aad runtii shuruudaha doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ku qoran meesha qodobka 12aad u badan badankiisa runtii aniga waxaan qabaa qodobkaas waa shuruudahaas waxaa qoraya qodobka 88aad ee dastuurka marka inaan loo baahnayn meeshaas inay soo galaanba sidii ay ugu rifargareeyeen sidii loo rifargareeyey waxyaalihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka khuseeyey in ayaga la yidhaahdo sharcigoodii bay ku qornayd in halkaana wixii dastuurka ku qoran aan la soo rarine dastuurka loo daayo oo qodobka 88aad iyo 89aad labadaas qodobba madaxweynaha iyo shuruudihiisa iyo qaabka ku imaanayo ayay qorayaan guddiguna qodobkan gabi ahaantiisa faqrooyinkiisa kala duwan sidaasay u soo qorqoreen marka in halkaas loo rifargareeyo oo dastuurkaaba ay nugu qoranta in shuruudahaas iyo kulli qodobka 13aad doorashada labada gole ee baarlamaanka federaalka waxay ka dhacaysaa dalka oo dhan iyadoo dalku midaysan yahay taas waxaa moodaa in doorashada lagu xirayo shuruud aysan ka bixi karin oo tacjiizi ah oo aysan dalka uga suurtageli karin dalkoo midaysan qaybna shabaab baa haysta qaybna arrimo siyaasadeed bay lagu kala maqan yahay qaybo kaloo muran siyaasadeed oo hadda taagan jamhuuriyadda federaalka ka tirsan oo muran siyaasadeed oo taagan ku maqan baa jirta marka haddii taas lagu xiro macnaheedu waxaa weeye 20 sano soo socota ama ilaa la iska waafaqo ama ilaa dalka aan shabaab ka xoraysanno ama inta kulligan tuuta gashanno aan dhahno dalka shabaabna aan ka xorayno somalilandna aan wada hadal sax la furno markaas wuu suurtagalaya laakiin kii hore waxaa ku qornayd meeshii suurtagala waxaan qabaa iyadoo sidaasna ay ku qoran tahay haddana in duruufta gaarka ay hadda dalku ku sugan yahay in lagu qoro meeshii suurtagala faqrada afraad waxaa ku qoran habraaca waxaa ku qoran faqrada afraad ee qodobka 13aad meel ka mid ah in habraaca iyo shaxda loo raacayo xisbiyadu markay ay soo gudbinayaan liiska musharaxiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku inay keenayaan taas waxaan qabaa in faahfaahinteeda aan nala kugu hadlayn guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya waxaa looga ibtilo noqotay oo looga maari waayey runtii in qoladii meel loo waaya awooddeeda iska durugsato marka lagama bixi karo shuruudo cusub hadda habraacyada xitaa xisbiyada lagu diiwaangeliyayo aad bay maaragtay waxaan xisbi mararka qaarkood la isdhihi karo war xisbigu waa ideolojiyada iyo waa qanaacad dadku ay ku qancaan anugu kuma qancin karo in xisbigaani dumar tiro badan ay ku soo biiraan intii ku qanacday xisbigaa ku soo biiraysa laakiin waxay ku leeyihiin intaas waa inay dumar noqotaa intaas waa inay hebel noqotaa shuruudo iyo habraacyo ayaga u gaara ayay runtii dee la yimaadeen marka inaan lagu hadlayn habka iyo shaxda ay u raacayaan liiska xisbiyadu ay gudbinayaan ee baarlamaankani waxyaalaha go-aanka uu ka gaarayo ay qayb ka noqoto faqrada shanaad oo 4%-ga ah 4%-ga ka hadlaysa isla qodobkaas laftiisa waxaa la yidhi xisbigii ku guulaysan waaye 13 xildhibaan oo labada qala wuxuu iska noqonayaa xildhibaanadiisii way iska dhex joogayaan meesha iska dhex joogayaan ama xisbiga rabaan bay ku biirayaan mar haddii kriteeriyadii xisbiga uu soo buuxin waaye in loo aqoonsado waaye xisbigaasi inuu xisbi burbura yahay laguna qasbo dadkii xildhibaanimada ku soo helay magaciisa oo 12 boqolkiiba ama 12 xubnood ama 10 xubnood waxay rabaan baa noqdaane in xisbiyada jira ee baarlamaanka ka mid ah ha ku kala biiraan inba meeshaas lagu qarbo oo dad iska dhex joogo oo dhexda raaca baarlamaanka laga daayo taasi waxay keenaysaa in xisbiyadii mar haddii thresholdkii la yareeyey inay soo baxaan 150 xildhibaan
oo xisbiyadoodii buuxin waayeen shuruudihii boqolkiiba 4 ah marka baarlamaanka nuskiisii xisbiye kama tirsana waay arrintii marka musuqmaasuqa iyo arrintii isku dhexyaaca weli in baarlamaanka uu ku sii jiro ayay qasbaysaa taasi marka mar haddaan thresholdka haddii laga dhigi lahaa boqolkiiba 7 hore ama laga badiyo boqolkiiba 10 xisbiyada yaryarka uma roona taasi waxay keenaysaa in dadka oo dhammi in wixii ka soo harana waa la kala qaybsanayay tii hore sida ku qornayd hadda marka waxay tani dhiirigelinaysaa dad badan oo xisbiye ka tirsanayn ama xisbiyadoodii ay shuruudihii iyo kriteeriyada xisbiga soo buuxin waayeen inay baarlamaanka